madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlayay madaxtooyada ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhex maray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Madaxweyne Biixi sidoo kalena waxa uu qiray in dadaalo wada hadaleed oo khadka telefoonka ay dhex mareen madaxweynaha Soomaaliya kan maamul goboleedka Puntland isla markaana ay dhexdhexaadiyeen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaalida iyo sidoo kale safiirka Soomaalida u qaabilsan dalka Mareykanka. nimankaasi waxay yimaadeen January markii hadalku bilaabay waxaana yiraahdo waxa wanaagsan inaad wada hadashaan Soomaaliya waan waa hadalay ninka Farmaajo ciidanka ka bax Soomaaliland waa inta Cabdiwali waa soo gal hadalkii la hadal baa la yiri isagana uqsaya waan waa tiraba 3 jeer oo ay waliba conference lagu la jireen ka Mareykanka kala waa yaalada saddexdii goorba Cabdiwali wuxuu yiri saddexdii ka bax isla markiiba kii u dambeeyay la sheegay أفريقيا وحصوق هذا ورا كانوا دمية أفريقيا بيش صدق حيل واتكي سجال كه بيدمو حيل صو هذا سفير كام مريكا كنا يروحوا ويقول واحد ولا يا إن صدق حيل قضية كيت وين كاني إن فريا أروت بريتو وما شاء الله دخل ورنا وده وأنا كانت شعره صدق حيل ورا حسن صدق المحيي حبده هلا تشوش هو يبنتيريان كهلا أقرأ هلا سميو قاب أي لبضك كماندر يبغى كوا هذا كلامه سأنا يسوون عيسى كده سعيد وأنا أحفظه له صدق ما أقول وحلا صوت سفرك بركة وصدق حاسن دوري هنا قبتشوك هذا عبد الولي بكتير الكراء تلفونك أقول صدق حلا قلقور صدق هو رانا وقار لكن واحد كل شيء سفيرو عبد الولي المغريا عيدا كيسي مكون حيجي عشان بقرامتر تدوك كيلومتر قربت كسوق والروا وليه إلا حطوا صوص عوائل مش تابع قلك سولو ذا بدونه أروت مركز عاد صوب حنا وير ربي وسوق قاضية هب أروت هدي وير كلا وأنا بضمضة حطول أنا ووحيسي هكذا جست عشان تبرك وسوق برا كي كذا كوري سهل لما تبوه مع فرباج وكتير في تلك فرنسا لا هاي نبض هل كي قاس وراف مايو حبض السوري بينه لكن بريت واحد نوت عشان توقع يجي شرينا لما قوم بيجي صورني waxaan mu soo wareeray wuxuu dagay baruhu aroorta ka soo weerar qaadan madaxii iska soo reysay yaa garatay sariir barid baad ay ku jiraan weerar gal ma galaya leeb waa gudan wixii ka dhacay nin meel u jeeda hadal ma xirayo waxaan arkayaa in aan dadka Puntland dagaalka daruugu jiray dagaalku mid siyaasad ah Soomaaliland waa gobol kamid ah caasi garoobada xoog baan ku muquurinaya xamar ka soo baxay oo la soo maray Cabdullah Deewarka marka ninka wada hawsha yan ka hadlay داوعي ميارو ديالو صدرنا حمر لوجين ميارو تركي جو قاضي نعيد كيسي داوعها عبس كي كان عبد الله الاستعماري أنا كراضي هدينا بدل دوني نوضة نبعد دول كوضة هل كاسيك صوتها madaxweyne Biixi waxa kale oo uu sheegay in ciidamada Puntland ay xasarad ka abuureen magaalada Hadaaftinimo ee gobolka Sanaag weerar laga soo diray afar gaari oo teknika oo ka yimid Garowe ayaa waxay raas ka rideen هذا أفتمو أو حروت السلطنة سودان سعيد أو وحي صوماليا أبو غياب جزانا يحب كذا ولا سؤال بتهجرس مركاني كي قضية سياسية كي مدحنا قميضة كي وحجرنا إلى سؤال بدنا نقول له هنشبيه أما حراري دبل شو حكيت له جيني ما له بدري حنب معها خاص بالسوق شيء إذا عاد رسول صفرست وهذا نورك نكسيسين قالوا هبلي حق أمره وادي هو حادي ده وكذا كل هذا وادي هذا وادي كده ساوح الوقت madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kalena shirkiisan jirayd waxa uu ku eedeeyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inay dabada ka riixayso dagaalka Tukaraq waa dagaalka Soomaaliya ku soo qaaday Soomaaliland marka dagaalka waxa loo aragnaa dagaal ay wadaan dawladda Muqdisho ka dhisan waxaad idaacadaha iyo dadka wariyaasha iyo saxaafadu ay inta badan isticmaal ka maqlay waa isticmaalay Puntland iyo Somaliland mahaya waa laba dirisa waa dad isku mid ah waxa la xaalada hore taariikhda uga dhaxaysa oo gaarina ma jirto waxay soo qabsan ma jirto waxa weeye siyaasad ka timid Muqdisho dawladdeedu ay soo goysay oo ay ku doonayso inay ku xaqiijiso ama hirgeliso inay tahay dawlad ka talisa Somaliland inaanay jirin waxa la yiraahdo qaran Soomaaliland uu yahay gobol ay xamar ka taliso oo Farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu ay caalamka u tusayaan inay tahay gobolada ay u tahay mid kamid ah
marka Soomaaliland 17 sanadood adkaysatay qarannimadeeda iyo hay-adaheeda iyada oo aan wax colaada u gudbinin dawladda xamarka dhisan dawladda nimka dhisan waxa la noqotay inay ciidan ku caburiso Soomaaliland dad badan baa yiraahda sababta waxa kiciyay ciidanka Soomaaliland muxuu tukaraq u tagay ciidanka Soomaaliland tukaraq wuxuu tagay 2013 wuxuu tagay 2015 ciidanku dalkiisa halkii uu kolba ku haboon marka ayaa loo rabaa dambi maal uu galay ciidankaygu hadduu dalkiisa meel kamid ah deeyay waanu degaya waxu gudanayaa waajib dastuuriya marka annagu ma naasan xuduudada ay sameeyeen tala Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay ma naasan waa wax caalami ah madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kalena sheegay in gobolka Sool ay ku maamulayaan siyaasad ku salaysan nabadgelyo siyaasadii ugu waaweynaa ee Sool ee jabhada sameeyay ee ciidamada abuur Soomaaliya ka soo horjeeda wanaga nabad ku heshiinay isba warsa xayna toosiya ka gudoomiyaha khaatuma ku wahayd labahay oo tukaraqda intay degtay aynu ciidan ahaan iskaga horan kun isa Allah ku neeshay tobankii waa kan aan khaliif maanta markaynu heshiinay Soomaaliland oo dhan iyo deegaanada Sool iyo Sanaag bari ayaa waxaan qosay inuu xadkeena nabadgelyo ku gaarno waxaanu gaarnay xadkeena si dadka nabadgelyo si mashaariic loo doono caalamka dhul nabada ay wax laga qaban karaa si dadku u dego si biyo loogu qodo si iskuul loogu sameeyo si caafimaad loo sameeyo waa in nabadda xadkeena soo xiro sidoo kalena madaxweyne biixi waxa uu sheegay in ciidamada Somaliland aanay dhaafi doonin halka ay joogaan xilligan haddaan Somaliland marka hore duulimaad maanahin kuma duuleyno ciidna haddiina la soo weeraro istaafacayna nin siyaasi hore Soomaaliya wuxuu yiri dagaal dheer baa la gelaya ku dheer iyo ku dhowtoona diyaar ma nihin laakiin dad ka maargudaan ugu difaac man ku jiri Somaliland waxa ka dhaxeeyay wada hadal baa lagu dhamaan karaa kaana diyaar baanu ugu dambeyntiina madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay khasaaraha ay sababtay duufaanta ku dhufatay xeebaha galbeedka ee Somaliland oo uu sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 49 qof khasaaraha imika Somaliland ka soo gaaray dadka dhintay waa 49 qof Somaliland toddoba qof raqeer u xumaaya dadkii waa qaaday baday ku dareen shan baa caruusha jirkaya ah toddobaatana waa dhaawac magaalooyinka dumay waa badan yihiin xoolaha waxa ugu nafado bini'aadmiga aynu islaamku ka nafsiga waa geeri xiraysnaa halkiisa ku baxtay horta ilaahay mahadi weeye xooga intaa leeka dhimashada bini'aadmiga dadku aad iyo aad ugu yeeray marka loo eego xoolaha عبد الكريم سعيد صالح تلفزيون كعالمي هون كيبل تي في هرقيسة